diinteenna islaamku waa diinul yusri was-suhula waa diin fudayd ilaahay ugu tala galay weey ilaahay wuxuu leeyahay yuriidu Allahu bikumul yusra wala yuriidu bikumul usra ilaahay fudayd buu idin la doonayaa culays ilaahay idin la dooni maayo wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj diinkiina dhexdiisa wax culays ah iyo wax dhib ah ilaahay ma yeelin nabigu waa ka yiri sallallahu alayhi wasallam yassira wala tu'assira labadii saxaabi ee Yaman u diray dadka marka u tagtaan oo fududeeya ha ku cuslaynina markii diintii islaamku ay tahay diin fudud oo ilaahay fududeeyay xakaaga filan ummadii hore salaadaha ay tukan jireen aad bay u farabadnay annagana bilowgii hore nabiga waxa loo soo dhiibay konton markii uu nabigu ilaahay ku laabtayna waxa laga dhigay 5 salaadood waa fudayd aad dareemaysid haddii marka diinkii fudayd uu yahay si kale dadka jiran ahlul a'daarta ah danaha khaaska ay haystaan ee musaafiriinta ah ayagana waxa la siiyay takhfiif gooni ah oo kaas ka bedelan oo si fududeynaya ahwaashooda ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay bishaan ramadaan qofkii jiran fa'iddatu min ayaamin ukhra maalmo kale soonkood baa laga rabaa oo si gooni ah qofkii jiranaa iyo qofkii musaafirka ahaa waxa laga dhigay maalmo gooni ah rukhsa ayaa la siiyay nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu jecel yahay rukhaskiisa in la yimaado sidoo u jecel yahay waajibaadkaba iyo cazaaimtiisa in la yimaado qofkan marka mariidka ah marka koobaad waxa loo qaybiyaa sharciga labo qof jiran oo jiradiisa inuu ka bogsado ama ka raysto aan la rajaynayn oo cudurkan waxa lagu yaqaanaa inuu yahay cudur qofka uu ku dhaco inuu ka raysto ka caafimaad qabo aan la rajaynayn qofka isaga waa qofka labaad waa qof xanuunkan hadda ku soo dariyay laakiin yurja bur'u inuu ka raysto ayaa la rajaynaya midkaan la rajaynayo inuu ka raysto ee hadda jiran markuu afuro isaga waxa laga rabaa fa'iddatu min ayaamin ukhra maalmo kale ayuu soo qalaynaya midkaan aan la rajaynayn ana awoodin inuu wax weeyaan cudurkii asagoo uu hayo uu ku sooma aan awoodin qalana aan laga sugahayn asaga waa loo sii fududeeyay miskiin buu quudinayaa waana iska afurahaya wuxuu la mid noqonayaa qofka waayeelka ah oo soonka ka tabar yareeyay duqow daraadiis oo inuu soo yaraado aan rajo laga qabin miskiin baa laga quudinayaa wuuna iska afurahaya qofkii marka mariidka ahaa ee jiranaa saddex xaalo ka bixi u mahayo xaalo waxay tahay waa jiran yahay laakiin jiradan uu soomi karaa bilaa mashaqqa wax dhiba iyo culays isagoon dareemin buu soomi karaa xanuunka hayaa fudud markaas kaas laga yeeli maayo inuu afuro waa inuu soomaa hargab buu qabaa lugta oo kale ayaa meel nabar uga yaala oo laga daweeyo oo laga xiray qofkan marka soonkii waa soomi karaa wax dhibana ma dareemayo isaga waxa laga rabaa inuu soomo waxa soo haray qofka labaad wuu soomi karaa laakiin macal mashaqqa dib iyo tacab ayuu ku soomi karaa kaasna waxa u fiican inuu rukhsada ilaahay qaato oo uu afuro ayaa laga rabaa rukhsada noocaas ahna kama tago ilaa qof jaahil mooyaan qof kale kama tago mashaqqa iyo dib haduu dareemayo
وأفرها يا رخصة إلهي بسك قاضني قفك صدح هذه وحوية حدو صومه وحود حيا إنه هلاك سمه وخطر قاله أيا الله ظننا هيا وحالتي سكوما أي قشة أما وآدي باتان عادي أهين مرض كي زيادة كسي بطه كاسي إنه صوما حرام وي ومنا بنانا إلهي وحليه هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كعنتينا كردينا نفتينا هلاك كدوننا قف كاسي وحو نقنا هيا قف نفتيسي أساقو الدلي إنه صومانا وحرام dadka waayeelka ah oo in badan sokorta ay qabaan markii la yiraahdo afur waxay diidayaan inay afuraan waxaana laga yaabaa inay qaar badan kooma ay galaan iyagoo oranaya waligeenba maanan afurin waligeenba maanan maqal afur ma yeelahayo intaasaan soomanaa maanta noloshayda iyo cimrigay ku khatimi mahay inaan afuro iyagoo halka ka doodahaya marka kuwaasina waxay u baahan yihiin cilmi ahaan loogu sheego la yiraahdo sharciga islaamka adoo kale inuu soomaa waa xaraam yaa marka darajaadkan jaan goynaya markii sokorta laga hadlayo yaa qiyaasahaya dhaqaatiirta aqoonta u lahayd iyo khibradooda ayagoo aqoontoodii iyo khibradoodii kaashanaya ayaa waxa laga rabaa qofkan mariidka ah markuu cabiro oo uu qiyaaso oo baaritaan ku sameeyo inuu fiiriyo khatarta sokortaani ay leedahay iyo dhexdhexaad miya sida hadda doctorku uu ka hadlayay markaas uu yiraahdo waa soomi kartaa dawadaadana kaasho hore u soco kii khatarna uu yiraahdo adiga ma soomi kartid mana ku banaana inaad soontid miskiin iska quudi maadaama sokortu ay tahay cudurrada dadku iskala noolaadaan iska quudi miskiin saasna asagana ugu naseexeeyo haddii ku adkaysana oo culimada iyo ahlu cilmiga u diro bishii ramadaan hadda ayaa waxa dhacday taraawiixda markaan ka soo baxay ayaan wiil ordahaya ay yimid wuxuu yiri awoowe waa dhimanaya 9 sano wuu dhaaf 3 maalmood baana ramadaanka laga soomay 3 maalmoodna kooma inuu galo khatar u gal inuu afurana waa diid adigana waxbuu ka yeelahayaa oo hadda u tagtid inuu warkaaga yeela laga yaabaa khatar buu ku sugan yahay gurigaan ugu tagay waqti dambe oo habeenkii ah asagoo saa u qarqarahaya waxuu cuni karaa aynan jirin waa u naseexeeyay inuu dambi galahayo qaatil nafsiina uu noqonayo meeshuu ajarka raadinayana halaag iyo inuu naar gala uu khatar u yahay sidaas iskaga afur waana iska daay marka waxaan rabaa taas in loogu naseexeeyo